Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan rabaa inaan kariyo quraac fudud maanta. Waa ujeedaan waxaa meesha ii yaalo qudaar waaye iyo ukun. Waxaa ii yaalo barbarooniyaal oo 4 nooc amiin. Waxaa ii yaalo kabsar iyo basal caleen iyo meeshaan waxaan kalaan ku wataa yaanyo. Marka insha Allah waxaan rabaa inaan idin tuso saan waxaan dhan aan iskugu dardaraayo insha Allah. waxaan dhan hadda waa kuwa ujeedaan waa soo diyaarsada laakiin hadda waxaan rabaa inaan isticmaalo geedkan waxaan ka soo gatay Walmart reer Mareykanka waa taqaanaan reer Yurubna Canada waxaa ku yaala Walmart way ka heli karaan marka khudaarta intaan gacanta ku gogoon lahaa oo waqti dheer uu igu qaadan lahaa waxaan isticmaalaa mashiinkan ujeedaan mashiin easy ah waaye khudaarta dhaqso uu ku jarjaraayo ana iska jecel size-ka isu wax u jarjaraayo maxaa dheh waxa waaye inta size-ka aan jeclahay u jarjaraa gudaha waxa waa sakiintiisa yaryar marka maasha Allah markaan aan karsanayo ukunta iyo waxyaalo kala jira insha Allah aan soo gelin doono markaan karsanayo aan sameysanayo aan zaid u isticmaalaa marka waxaasna isku soo jarjaro hadana waxaan ku shubanaa hadda kismaayo xawaaj intaas yar aan ku shubanaa ujeedaan marka waa isku wada qasaa soo isku dhaxgalaan khudaartan waxaa hadda aan jarjartay iyo xawaajiga cusbo yar hadaarto ku shuban kartaa hadaa rabtina maraq maaja isticmaali kartaa marka choice-ka adiga iskale okay meeshan waxaa ii yaala gobol yar oo cheese ah cheese-ka inta birta nooca rabtida ku sameysan kartaa cheese-kana marka rabaa inaan ani hoosto aan ku dhex shubto khudaartii waxaan isku jarjaray insha Allah
ukuntii hadda waa kana waa soo diyaarsaday marka waxaan rabaa inaan isticmaalo geedkan marka geedkan isticmaalaysid waxaa u baahan tahay inaad gelisid xaanshooyinka yaryar oo keega aad ku sameysanaysid. haddaad rabtid ma ku sameysanaysid, haddaad rabto ku sameysanay, laakiin ani yacni ra'yigayga ahaan waxaa fiican inaad isticmaashid geedahan ma kaaga dhagaayo. laakiin hadduu yahay midka keega kan bacda midaa jira mogtay asigoo caag loogu talagalay inaad gelisid ovenka, hadduu yahay okay waa, laakiin kuwan badanaa way ku dhagaan. marka ani kanaan isticmaalaa insha allah. marka hadda waxaan rabaa inaan ku shubto qudaartii iyo ukuntii iyo wixii aan soo diyaarsaday. horta waxaa ku shubanaysaa waxaa ku shubanaysaa qudaarta, ukunta ma ku shubaysid. qudaarta markaa ku shubaysidna waxaa la rabaa kulli inaa hal size ka dhigtid, markaasaa haddana ukunta aad ku korshubtid. waa kana waa diyaariyay. hadda waxaan gelinaa microwave-ka, waxaan gelinaa ovenka. hadda waxaan idin tusaa nooca kale aad sameysan kartaan. basbaasaan hadda ku shubay, markii koob basbaas ma ku shubin maxaa ilmaha ugu talagalay. hadda basbaasaan ku shubtay, waxaan saaranaa birtii oo waxa lagu dubayay ukunta, laakiin waxaan ku shubanaa subag, ma isticmaalay saliid. mar walba waxaa fiican inaad ku samaystid saliidda iyo subaga. subagaana fiican maxaa saliidda iyo subaga haddaan isticmaalo saliidda ah ka culus, ama olive-da isticmaali kartaa. marka insha allah markaan diyaariyo kole waa arki doontaan sida uu noqonayo. waxaan fiirinaya hadda kan aan geliyay hadday ovenka weli waaye, wax yaraa ka dhiman. marka insha allah markaa aan kan kariyo waxaan tijaabinaa, aan fiirinaa inaan aniga iskugu keeni karo kulli. markaas aan idin tusaayo labada nooc aan sameeyay waxay different ku yihiin. markaa hoos gelisid iyo markaa kor ku karinaysid waxa different u dhaxeeyo markaas idin tusaa. mar walbo haddii aad rabtid inaad basbaas ku shubatid waxaa fiican inaa kor ku karsatid. haddaad rabtid basbaas inaad ku shuban waxaa fiican inaa hoos ku karsatid. marka labada yacni ani ahaan anaa jecel, marka waa idinla sheergareynaya le waxa ani aan jeclahay la idin sheega, idinkana tijaabiyo fiiriya. waxaa laga yaabaa idinka inaan jeclaanin waxa aniga aan jeclahay. marka ukuntii aan kor ku dubo waa ujeedaan. mar walba waxaa kor markaa wax ku dubaysid biyo kastoo dhalaa, maxaa basal iyo barbarooni, sidiisna barbarooni biyo dhalaa. marka waxaa mar walba aan tijaabiyo aan sameeyaa, aan make sure sameeyaa inuu biyaha ka khalalo. marka ukuntii kale aan kor ku kariyeyna waa kana, kan foornada aan ku kariyeyna waa kan, waa ujeedaan. waana kulul yahay, hadda dhawaan kasoo bixiyay foornada. marka waxaan rabaa inaan ka qaado xaanshada aan idin tuso
gudihiisa suu yahay. Markasta waxaa make sure sameysaa dhexda inuu ka bislaado sida keega markaa karinaysto oo kale. Keega oo kale qori dhexda ka geli, fiiri hadduu uu kusoo raaco qoyaan, that means weli waa ukunti waxbaa ka dhima, laakiin ukun waaye dhaqsuu karaa bis. Laakiin inaa iska make sure sameysid, yacni ma ahan asigoo ukuntii oo dhexda fashaqka inaa soo bixiso dhow ilmaha ay ku dhahaan maama ma rabno inaan cunno. Marka adina maanta dhan tacabshid jikaa ku jirto, ilmihiina hadday diidaan dhibkeeday leedahay. Marka hadda waxaan idin tusaa gudaha suu ka yahay. Hadda kor waa ujeedaan suu eg yahay, maasha Allah quruxdiisa iyo kalarka suu iskugu bedelay. Hadda waxaan idin tusaa gudaha. xaanshada markaa aad ka fiiqaysin si tartiib ugu fiiq, waxaa laga yaabaa marmar inuu kusoo raaco ukunta, laakiin inta qiyaas hadda aniga aan sameeyay haddaa sameysid ma kusoo raacayo. dadka qaarkood buraa lagu ku daraan, ani burka ma jecli because burka haddaa ku darto wuu adkaanaa, wixii dhan ukun inuu yahay dhan xataa ma dareemayso, wuu isbedelaa. marka waa ujeedaan wixii ukun waayo, qudaar waayo, maasha Allah caraftiisa leh. subagaas intaa isticmaashad kaba sii fiicanba, waaba kasii caraf badan yahay. hataa hadduu ku imaado qof marti xataa aa u samaysto ukunta noocan saan oo kale, wallaahi wuu jeclaanayaa. because Soomaali haddaan waxaa ma samaysano, waxaan samaysanaa ukunta inaan dabka saarno, saliid inaan shagagax lagu siiyo, dabka laga dejiyo, that's in ma fiicno. wixii waaba cunaysaa, marka waxaa fiican wax fiican inaad samaysatid oo cuntid. marka insha Allah walaalahayga waa kan waxaan soo kariyay, waa idin la sheeri kariyay. aad iyo aad u mahadsantiin, idinkana try gareeya. khayr badan Allah idin siiyo.